bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha soomaalida meel kastaa joogtaan aad baan idin salaamayaa waxa weeye maanta mowduuc muhiim aynu wadnaa waxa weeye mowduuca ku saabsan codaynta ama vote-ka waxa loo yaqaano qof kasta oo waddanka ingiriiska ku nool oo soomaali ah waxaa laga rabaa inuu codkiisa gato macnaha codee oo codkaaga maaragtay xisbiga munaasibka ah waa inaad doorataa waxyaalo badan baa waddanka iska bedelaya ay ka mid yihiin caafimaadka guryaha shaqooyinka jaamacadaha educationka waxyaalahaas oo dhan insha Allah videogan soo socda ka daawada waa video English oo Soomaaliland ku turjumay iyo codad la soo duubay oo waxyaalahaas oo dhan ka sheekeynaya marka walaalayaal videogaas si fiican u daawada oo dadkana la share gareeya Please, one at a time. Okay, waxa weeye waa community kamid ah communityada Ingiriiska shir bay waxay la galeen mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Ingiriiska marka buuq badan baa meesha ka dhacay marka ninkii wuxuu yiri fadlan bal aynu isdejino qof kasta mar ha hadlo. My daughter's school is falling apart and there's just not enough teachers to cope. waxay tiri iskuulka gabadheedu dhigato dhibaatooyin badan baa ka jirta mashaakil baa ka jira macallimiin nagu filan oo enough ana ma aanu haysano. Mother needs surgery and she's been waiting 6 months. I got made wuxuu yiri hooyaday way xanuunsanaysaa amaliyadii la yiri waad u baahan tahay 6 bilood bay sugaysay waiting list gabadhii kalena waxay tiri and can't pay my rent but there are no council houses. waxay tiri shaqadii waa leega eriyay kiradiina ma bixin karo laakiinse waxay tiri xitaa guriga council ma aanu haysano. Look, I know you're all angry. maqlab yiri waa ogahay inaad kulligiin macnaha aad cadhaysan tihiin But there is one simple explanation. laakiin waxa weeye waa xalku waa mid kaliya weeye sharaxaadu mid kaliya idinku sharaxaya waa kelmad kaliya. It's all his fault. dhibtan oo dhan aad aragtaan waxa weeye ninka uu farta ku fiiqay maaragtaa ninka ugu dambeeya ninkaasaa u sabab buu yiri. ninkii waaba yaabay. What's Sally got to do with my mother? ninkii yiri hooyaday waxay u baahan tahay camaliyad wuu yaabay wuxuu yiri maxaa ka galay cali hooyaday iyo cali maxaa ka galay isaga. He's an immigrant. ninkan wuxuu yiri waa immigrant wuxuu weeye waa muhaajir waxa lagu yiraahdo qofka macnaha meel u haajiray laakiin kelmadda uu yiri maanta wuxuu yiri bedelaya macnaheeda wuxuu rabaa inuu yiraahdo ninkan waa qaxooti asylum seeker ama refugee inuu yiraahdo rabaa uu yiri qurxiyay wuxuu ka dhigay ninkan waa nin immigrant ah oo muhaajir soo haajiray weeye. If we get rid of Ali, then medical waiting times will be shorter. wuxuu yiri haddaynu Ali iska khaarijino oo dibadda u erino the waiting listkii waa yaraanaya dhaqtaro badan baynu meesha ka helinaa timekii wuu yaraanaya appointmentyadii waa idin hagaagayaan dee maxaa u baahantiin. We'll have more doctors. Actually, I am a doctor. ninkii qaxootiga ahaa wuxuu yiri war anaaba dhaqtara waana runtii dee waddan kale inu joogno inta dhakhtarada qaxootiga u yimi waddankan moogtahay qualified doctors waa buuxan gobol kasta oo ingiriiska dad aragtid waxaad ku arkaysaa intaasoo boqolaal oo dhakhtar ah marka ninkii wuu yaabay. But what about the services you've cut? Our schools. His fault. wuxuu yiri waa maxay serviceyadan iskuulka aad ka jartay dhibaatooyinkan waxyaalahan badan aad iskuulada ka jartay waa maxay de waa kaas wuxuu yiri fault isagaa qalad kale uu yiri. Housing? guryahana Fault. isagaa ka mas-uula. Hospitals. Look, dhakhtaradana ninkii wuu wuxuu yiri maqlab uu yiri aan idin sheego dhibtu waxay ka timi. whatever the problem is, it's because we don't have enough money. dee lacag ma haysano buu yiri dhibta oo dhan waa maxay lacag ma haysano haddana lacagtii waxay ku jirtaa sanduuqa. And we don't have enough money because we have to spend it all on Ali. dee wuxuu yiri lacagtii maba haysano lacagtii sababtoo ah lacagtii oo dhan ninkaas aynu ku qarash karin wax kasta cali baa qaatay wuxuu u jeedaa messajkan macnaha qaxootigii baa wax kasta naga qaatay sanduuqii nin buu dhiibay. What about the money you've just given to that guy? gabadh baa soo buudo waxay tiri war waa maxay lacagtan aad leedahay lacag maba haysano soodiga ninka u dhiibay lacagta ninkan muxuu ahaa. He's just the CEO of a major tech company that needed a tax break. wuxuu yiri ninkan waa ninkii CEO-gii waa mas'uul sare oo ka mas'uulka qaybaha taxka iyo cashuuraha dawladda weeye marka waxba don't worry buu yiri iska ninka iska ilaawa arrinta. Worry about him. But if you need money, couldn't you just stop giving it to him? He wuxuu yiri haddaan lacagta u baahanay inagu maxaad isaga u siinaysaa oo taasaab cajiibe. clearly doesn't need it. You start giving it to the school. marka wuxuu yiri tayib lacagta maad iskuulada ku bixisaan maad dhakhtarada ku qarash garaysaan maad meelaha looga baahan yahay gelisaan. And hospitals instead. طبعا ninkii taxkii wadi waa yaabsan yahay. Sorry. garaale ahaada. He's a job creator. wuxuu yiri ninkan waaba job creator waaba ninka shaqooyinka abuura. He hasn't created any jobs round here. He isn't part of our community.
war ninkan waxay tiri job shaqadu noo abuuray meed war ninkan anaga ogba talabaad waxay tiri ninkan kama mid ah community-gayaba waa cajiibe. Why would he care about us? I trust Sally more than him. war ninkan isaga keerna siinaya ninka cali baa dhaame cali baan aaminsanahay. Look, let me level with you. aan idin sharxay isugu yiri hadaba. I would love to put more money into housing and healthcare and education. wuxuu yiri waan jeclaan lahayn in aanu lacag ku qarasho aanu gelino maartay waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahaas oo dhan. But my hands are tied. de ma hayo waa gacantaydu waa waxa ku hayo gacantayda. I have to give wealthy corporations massive tax cuts because waa inaynu mogtahay hay-adaha iyo hay-adahan sare ee dowladda waa in tax culus ay meesha mogtahay iyaga la siiyaa oo laga sareeyo dadka. sababtuna waxa weeye xal buu waayey wuxuu yaradu garan waayey mogta because of Ali. dee sababtu waa ninka kiiba kusoo cali waa dana kusoo noqday mar kale. Really? cali waa yaabay ma runba ma hubtaa marka message-ku waa kaawayna soo gaadhay. politicianku waxa weeye mushkiladii oo dhan waxay saarayaan dadka kale mushkiladii intay xal u heli lahaayeen meel kale ayay ku leeyihiin ayaa sabab u ah oo dadkaasta u sabab ah macnaha xal ma hayaan waxa weeye cudurdaar weeye wax kale maaha cudurdaar weeye intay meesha farsamayn lahaayeen oo habayn lahaayeen cudurdaar bay keenayaan aan loo baahnayn. marka message-ka wayna soo gaadhay wuxuu leeyahay it's time for real change waa inaynu meesha wax ka bedelaa macnaha xisbiga dadka wax u qabanaya ee dadka u faa'iideynaya xisbiga codkaaga ugu rid. walaalayaal maadaama aynu ka mid nahay mujtamacan ingiriiska soomaali aynu nahay aynu meesha aynu ku yarayn maadaama aynu mujtamacii ku dhex jirro innaga lafteeni waxaa lanaga rabaa inaynu meesha ka qayb galno oo codkeennii dhiibno taas waa muhiim weeye inaynu codayno marka soomaaliyan waxaan leeyahay codkiina gata codeeya soo dhacsada xaqiina meesha ka muuqda meesha laydinku arko ilmihii yaryara waa intaa 24 saac markasta inan baa la dili inan baa meel lagu gowracay inan baa meel lagu tuuray waxaa la yidhi 2 sane ugu dambeysay inuu lambarku ka badan yahay dhici karta 700 oo wiil oo Soomaaliya lagu dilay baa la yiri ama inay ka badan tahay dhici karta mindiyaa lagu dilay xabada lagu dilay iyaga dhexdooda mindiyo soo haysta London oo kale markaad eegtid magaalada Soomaalida gang bay u kala qaybsameen group baa la soo qaybiyay iyaga way isdilay xitaa waa mushkilad weeye dawladda Ingiriisku iminka xukuumaddu inay wax ka qabatona yani dhibaato jirta dawladdii wax ka qaban karto xukuumadii wax ka qaban karaan waxaa jira xisbiyadu waa kala duwan yihiin xisbiga Labour kada wuxuu ku leeyahay waxyaalo badan baa ka bedelaya mujtamaca dadkan moogtay ku nool waddanka Ingiriiska hadda waa aragtaan dhinacii tacliintu aad bay u xumaatay jaamacadihii lacagtii cirka la geeyay lama geli karo dhinacii caafimaadka aad bay adoo adkaatay guryihii councilkii dadka abuse baa lagu sameeyay waa loo diiday guryo council dadkii waxa loo wareejinayaa landlord oo dhib badan marka anu waxaan oran lahaa xisbigan la yiraahdo Labour-ka loo vote gareeyo laano maadaama ay iyagu ku leeyihiin iminka promise aanu soo wadnaa si kasta waad moodeen ku kale ka fiican yihiin laano ballan bay qaadeen waxay ku leeyihiin dhinaca caafimaadka appointmentyadu sidii baraho noqon maayaan marka aad la hadashid markiiba moogta waa lagu dhameynayaa jaamacadaha lacagta waa sidii awal 3000 bay ahaan jirtay pound lacagta hore lagu soo celinayaa guryaha councilka dadka waa loo fududeynayaa waxaa jiray zero contract xukuumadda iminka waqtigan xaaliga ah contractadii waxay sameeyeen waxa la dhaho zero contract oo qofku uu shaqo ku heleynba laakiin Labour-ku wuxuu ku leeyahay iminka waxaan sameynayaa zero contract-ka waa la bedelayaa marka qofkii waxa loo sameynayaa contract caadi ah waxa la siinayaa contract ku shaqeysto caadi ah waxyaalahaas oo kale waa muhiim shaqada waxa laga dhigayaa maaragtay minimum wages-ka la qaato 10 pound per hour ama 10 pound saacadii dadkana waxay siinayaan beeradan guryo council ah oo fududeynaya arrimahaas oo dhan marka inaga maxay noo diiday inaynu codkeena ugu shubno waynat dadkii oo dhan baa ugu shubaya marka hadaynu Soomaali nahay inaynu midoona fiican oo maaragtay wax inaga ummadeena faa'iido noo leh waxa dhici karta haday la wareegaan inay mashaakilkan moogtahay dhalinyarada iyo teenagerka iyo inay wax ka qabtaan ma dhici karta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa khayr insha Allah maama Soomaaliyeed baa inoo duubtay hadallo aad iyo aad u muhiim ah insha Allah waan ku soo gabagabeynaa intaanan codka u gudbin waxa weeye formkan videoga hoostiisa ka helisan insha Allah linkiga waa idin soo diray marka linkiga gala caawa qof kasta oo videogan daawada insha Allah waxaan ka rabnaa inuu form ka buuxiyo waa very simple weeye start now waad ku dhufanaysaa markaad gashid linkiga hadhowto waxaad galaysaa continue hadhowto waxaad dooranaysaa meesha aad joogtid ma England miya ma Scotland Wales Northern Ireland continue ku dhufo hadhowto haddaad tahay European citizen badhankaa taabo ama haddaad tahay British badhankaa taabo continue ku dhufo hadhowto taariikhdii dhalashada iyo adresskaaga waxaas oo dhan hadhowna badhanka ugu dambeeya taabo insha Allah marka
hana ilaawina videoga inaad sii share garaysaan oo dadka walaalihiin la share garaysaan oo waddanka ingiriiska meel kasta jooga. iminkana insha Allah kusoo dhawaada maamo Soomaaliyeed hadallo aad inoo taabtay xaqiiqatan ayay ka hadli doontaa insha Allah. kusoo dhawaada insha Allah. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo ka damqanaysa caruuraheena waxa haysta dhibaatada haysata, dhibaatooyinka kala duwan oo ilmaheena haysata. hooyo ka danqanaysaan ahay, xabsiyada ay galeen, mindida ay isku laynayaan, darooga iyo dhibaatada ay ku dhex jiraan. walaalayaal, marka waxaan doonaynaa sidii arrintaas aan uga doodi lahayn, macnaha aan uga bixi lahayn. waxaan ku heli karnaa waxa weeye inaan codayno, baan ku heli karnaa codkeena aan iibsano. sidaad ogtihiinba waddankan Ingiriiska ama wadamadan reer Yuruba, dadku waxay qiimo ku leeyihiin markay codeeyaan ayay qiimo leeyihiin. sababtu waxa weeye waa la dhageysanayaa, codkaaga nin waliba ku xisaabtamaya. waa inaan codkeena iibsano, codkeena waa inaan ku soo dhacsano xuquuqda aan leenahay oo dadka kale haystaan. waad aragteen dadka waddankan ku nool waxay cadkooda ku soo dhacsadaan, codka ay bixinayaan bay cadkooda ku soo dhacsadaan. innaga wax xuquuqa waddanka kuma lihin. sababta waxa keenaysana ma codayno. dad waxaan nahay leysi ah, dad waxaan nahay aan danahooda ogeyn. Soomaaliyey, waxaan idinkula talinayaa maanta meesha ay taagan tahay waa ujeedaan. ilmaheennii xabsiyaday ku jiraan, in badan oo badanna way dhimatay. intii xisbigaani haystay waa la socotaan dhibaatooyinka ina soo gaaray. codeeya, codkiina ku soo dhacsada, cadkiina u codeeya xisbiyada dantiina ku jirto. waxaa weeye jaanis badan baa jira, dad badan oo ina necab baa ordahaya oo raba inay guulaystaan. codeeya, u codeeya xisbiyada dantiina wada, u codeeya Labour Party-ga. jaanis badan buu ina siinayaa oo fursado badan baa ka jira. ballanqaadyo fara badan buu sameeyey. dadkeena shaqo la'aan baa haysata, waxaa haysata zero contract wax la dhaho, waxaa haysata lacagta meesha ugu hooseysa la siiya. codeeya, soo dhacsada cadkiina. Soomaaliyey, hurdada ka kaca, waad tiro badantihiin, kulli saad u dhantihiin. codeeya, xaqiina soo dhacsada, miiska garaaca. haddaad codaysaan waxaad xaq u yeelanaysaan wax kastoo aad u baahan tihiin in laydin qabto. waxaa idinkula talinayaa, idinkana codsanayaa inaad codaysaan. Labour Party-gu wuxuu bixinayaa jaanisyo fara badan oo ah saacadii shaqada inuu ka dhigi doono 10 baan, NHS-ta inuu caafimaadka wax badan ka bedeli doono. dhibaatooyin baa ina ka haysta waxyaabahaas oo dhan. waxaan xaq u yeelan doonaa inaan ilmaheena xataa dhimanaya maalin kasta dhibaataduna haysato in aanu miiska ku garaacno, aan niraahno waanu idiin codaynay, waa inaa wax noo qabataan. marka waxa weeye jaanisyo fara badan buu bixinayaa oo ballan qaadayaa. u codeeya Labour Party-ga, u codeeya. fadhiga ka kaca, waqtigu waa gabagabo, registerka waa la xirayaa. codeeya walaalayaal, codeeya. yar iyo weynba caruurihiina kaxaysta, wixii 16 sano ka sareeya kaxaysta ilaa 16 sano baan u malaynayaa in loo ogol yahay. qofkaan register ku jirinin khamiista ugu dambaysa registerka ha galo, sida ugu dhaqso badan u gala registerka. codeeya, xaqiina soo dhacsada. waa aragteen dhibaatooyinka naagaha haysata, ilmahoodii bay ka wada tageen, shaqooyin aan munaasib ahayn bay ka shaqeeyaan oo wada zero contractiya, oo xilli inay shaqeeyaan ma aha aysan wax xuquuq lahayn. ilmahoodii way dayacan yihiin. dhibaato badan baa ina haysata, guryaha dhibaato ina ka haysataa, caafimaadka dhibaato ina ka haysataa, shaqada dhibaato ina ka haysataa. wax kastoo aan xaq u leenahay, social care-ko dhan baa dhibaato ina ka haysataa. waa inaan codayno oo xaqeena soo dhacsano oo fadhiga ka kacno. waxaad waddankan xaq aad ku yeelan kartaa markaad codaysid baad xuquuq yeelan kartaa. codeeya baan idin leeyahay. qof walbana qofka kale ha usii sheego, ha sii sheergareeyeen cajiladan. kulli saa u dhantihiin. khamiista ugu dambaysa waa la xirayaa registerka. walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad u gudbisaan cid walba, codaysaanna aad isku daydaan ilmihiina inaad register gelisaan. waayeelkiina, dadkiina waaweyn oo guryaha jooga oo waayeelka inaad register gelisaan, inaad u kacdaan oo codaysaan
baa idinka codsanaynaa fadlan codeeya danteena ku jirta aniga ma aha kaliya inagoo dhan baa danteena ku jirta fadlan codeeya 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 danaheenoo dhan baa ku xiran codeeya Labour Party-ga waa aragteen 10 sano oo conservative haystay dhibaatooyinka dadkeena soo gaartay waxaan kaga bixi karnaa inagoo codeyna oo xaqeena soo dhacsana baan kaga bixi karnaa codeeya oo midooba codkiina ku gorgortama ku raadsada xaqiina please codeeya intaaba idinkula talinayaa aniga iyo idinkaba danteena ku jirta waana mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan la jeclahay wanaag iyo farxad inay ku noolaadaan meel kasto ay joogaan marka dhibaatada sidaynu kaga bixi karno waa inaynu midoowno waa inaynu xaqeena raadsano insha Allah waxaan rajaynayaa guul inaad gaartaan ina codeysaan saa u dhintihiin qofkii aan register ku jirin ba uu register sida ugu dhaqso badan galo sababtu waa gabagabo dhowr bari baa ka hartay khamiista ugu dambaysa insha Allah waxaan rajaynayaa ina kulligiin registerka gashaan aad codeysaan waan idin salaamayaa dhamaantiin waana mahadsantihiin salaamu calaykum